Soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan ka hadlaynaa mawduuc dad badan ay isweydiinayaan oo xasaasiya cryptocurrency ma fursad baa mise waa khiyaano dadka lagu qaldo. Mawduucaas aan ka hadli doonaa dhowr qodob ayaan dul istaagi doonaa oo aynu ku cabirayno ama halbeeg uga dhigi karno mawduuceena. Qodobkiina koowaad wuxuu noqon doonaa waa maxay cryptocurrency sidee u shaqeysaa cryptocurrency maxay tahay. qodobkana labaadna waxaynu ku eegi doonaa sidee ayay dadku lacag uga heli karaan ama sidee ay dadku lacag uga samayn karaan crypto. qodobkiina saddexaadna waxaan ku eegaynaa halista iyo faa'iidada, maxaa halista, maxay faa'iido leedahay, maxaa khasaara. qodobkiina afraadna waxaynu kaga hadli doonaa xaaladda Soomaalida iyo lacagta digitalka ama Soomaalida iyo cryptocurrency. qodobkiina shanaadna waxaynu kaga hadli doonaa Soomaaliya ma tahay meel ku habboon cryptocurrency. qodobkiina u dambeeya markaa iyadna waxa weeye talooyin iyo weliba tusaalooyin ama maxaa xal ah ama maxaa tala ah ayaynu ka eegi doonaa. intaa baynu iska soo gudubno markaa toos baan u gelaynaa. ciwaankiina koowaad waxa weeye horta cryptocurrency maxay tahay. cryptocurrency haddaad horada maqal iyo haddii aad maqashay horta waa lacag digital ah oo aan u jirin qaab qalin ah ama loo yaqaano warqada, laguna isticmaalo inta badan internetka. waxa ugu caansan coinka loo yaqaano Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana iyo wixii kale la halmaalo kuwaas ugu caansan. marka waa lacag horta digital ah oo aan la taaban karin weeye. sida lacagta saadka ama EVZ Pluska ama sahal lacagaha internetka isku dirno oo kale weeye oo internetka maraysa macna. lacagtani waxay ku shaqeysaa iyadoo aan lahayn wax bangiga. tan macnaheedu waxa weeye in dadku si toos ah lacagahaas ku diraan iyagoo aan adeegsanayn bangi dhexe ama hay'ad dhexe iyagoo aan adeegsanayn. badanaa waad aragtaan oo bangiyaynu leenahay dadka lacagaha u noqdo qof dhexe ama the third party loo yaqaano, qofka saddexaad loo yaqaano dhexda ugu jiro labada qof isku diraya dhexdhexaadiya jira. marka iyadu male waxaana isticmaalaan teknolojiyada loo yaqaano blockchain kaasoo si mataqaanaa nidaam ah oo cajiib ah inta badan xogta loogu kaydiyo loogana ilaaliyo been abuur iyo maaragtay in la dhaco lagaga ilaaliyo. marka horta cryptocurrency waa nooca weeye hordhaceedu. qodobkan labaad waxaan u sheegayaa sidee ayay dadku haddaba lacag uga heli karaan maadaama aynu sheegnay waxa ay tahay iyo sida ay u shaqeyso iyo maaragtay waxay tahayba. waxaynu leenahay marka sidee lacag looga samayn karaa, sidee ayaa lacag looga samayn karaa. horta dhowr qaab ama dhowr dariiq baa lacag looga samayn karaa. waxaan ka soo qaadanaynaa saddexda ugu waaweyn oo inagoo ku saleyna dadkeena Soomaaliyeed qaabka iyagu lacag uga samayn karaan. saddex baan ka soo qaadanaya. saddexdaa laba ka mid a inagu waynu awoodnaa lacag baynu ka samayn karnaa, midna kama samayn karno. tusaale hadda midda koowaad waxa weeye trading, qaabka ganacsiga gaaban baa loo yaqaanaa. waa qaab aad lacag uga samayn karto muddo kooban. tusaale imika coin baad iibsanaysaa. coinka markaad iibsato coinkaas markaa waa xilliga uu jaban yahay baad iibsanaysaa. kabacdi waxaad eeganaysaa saacadaha uu kor u kaco, kabacdi marka uu qaaliyooban baad iibinaysaa. marka faa'iidaadka markaa ka helaysaa. tusaale imika shayga $100 aad iibsatay, hadhowna isagoo $100 tagay baad iibsay, $80 baa markaa ku noqon lacag faa'iida. waa saas oo kale. waa tusaale wax la mid doona adigoo gegada ama siilada xoolaha tegay, neef kasoo iibsatay isagoo jaban, kabacdina dib ugu celiyay markii uu qaali noqday xilliyada carafada oo kale ama ciidaha oo kale dib ugu celiyay xilligu qaali noqday. marka saas oo kale weyn trading. qaabka labaad oo la yaqaano investing ama investment waa qaabka ugu ballaaran ee lacag looga samayn karo cryptocurrency. badanaa qofku wuxuu lacagta haynayaa ama coinka wuxuu haystaa muddo dheer. qofku inuu sugo shayga intuu iibsado inuu muddo markaa sugo oo qiimihiisa marka uu kor u kaco maaragtay uu iska iibinayo. waxay u dhici kartaa inaad sanad hayso, 2 bilood inaad hayso, sanad iyo in ka badanba, 2 sano, 3 sano, dadka qaar baa haya 5 sano, dadka qaar baa haya. coinku tusaale isagoo waxay iibsatay 0.5 kabacdi waxaad iska iibisay isagoo maraya $3. marka faa'iido 3 jibaaran, 7 jibaaran, 6 jibaaran ayaad faa'iidaysaa. ka u dambeeya waxa loo yaqaanaa mining ama macdan qodis baa loo yaqaanaa. kan inta badan dadkeena Soomaalida weli ma awoodayaan maadaama la isticmaalayo teknolojiyad iyo weliba kombiyuutar waaweyn oo u baahan koronto xooggan
maadaama lagu xalinayo xisaabaadka nidaamka loo yaqaano blockchain-ka weli kan awood uma lihin balse waa habka lacag looga samayn karo. qodobkan saddexaad waxaanu ka eegaynaa halista iyo faa'iidada ay leedahay. haddaan horreysiiyo faa'iidada, horta fursad weyn oo dhaqaale ayay leedahay oo dadku ay maaragtay ay mataqaana kaga faa'iidayaan. dad badan ayaa malaayiin lacaga ka helay oo maal gashaday kana ganacsaday, balse lacagtaad gelinaysaa mar walba ha noqoto lacag aad ka maarmi karto haddii xataa ay kaa lunto, haddii aad weydo, haddaad khasaarto. marka lacagtaasina noqonin sidoo kale iyadna lacag aad imika u baahan tahay, yani lacagaad maanta beri iyo bil ka bacd u baahan tahay aanay noqonin lacagaad ka maarmi karto oo muddo aad hayn kartaa ha noqoto. marka qaab noocaasa ayaa iyadna faa'iidooyinka ay leedahay. horta waa maxay? kow, dhaqaalaba laga samayn karaa, waa haa jawaabtaasi. sidoo kale faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid ah inaanay jirin cid maaragtay ku haynaysa lacagtaada, sida imika bankigan kasoo hadlayno kale xor baad u tahay lacagtaada, intaa doontaad haysan kartaa. bangiyadu maaragtay inta badan qofka way la xisaabtamaan, maanta lacagta xilligaas ma heli kartid, 10 cisho ka bacdi baad helaysaa. dowladda laga yaabaa inay mataqaan cashuuro ka qaadaan, waxaa laga yaabaa in dhexda lagu galo oo la yidhaahdo lacagtan xaggeed ka keentay, su'aalo badan lagu weydiiyo. balse lacagtan cid kula xisaabtamaysa iyo cid kaa warhaysa hataa waxaad haysato cid ma ogaan karto. marka waa no bank, waa no government, waa no third party, qof saddexaad ma jiro, bangina ma jiro, dowladna ma jirto, adaa markaa maamulaya. faa'iidada saddexaad ee leedahay waxaa ka mid ah inuu qofku uu diri karo lacagta, uu diri karo halkuu doonaba ha jooga dunida daadaha oo dhan uu diri karo daqiiqad yar oo kooban gudaheed buu lacag u diri karaa dunida oo dhan. taas waa faa'iida ay leedahay weeye. khasaaraha ay leedahay ama halista ay leedahay crypto, kow waxa ugu weyn horta waa scam, in lagu dhaco. marka dhacitaanku dhowr hab buu noqon karaa. ma in exchange-ga aad maaragtay aad isticmaalaysa la dhaco, iyo in adiga shakhsiyan lagu dhaco. marka waa laba kala duwan. in adiga shakhsiyan lagu dhaco marka waxaa ku xidhanto baasuurkaaga iyo saad u adkaysato iyo sidaad mataqaanaa baasuurkaaga qof kale uu kaaga helo ama waxaase ku xidhanto shakhsiyan waa lagu dhici karaa. exchange-ga aad isticmaalaysana waa la dhici karaa, taasina iyadna waa waxyaaba iska dhaca, balse waa reer oo yani waa dhifi naadir inay dhacdo. walow maaragtay daay marka qaar sanado ka bacdi halkii marba sanado muddo ka bacdi way dhacdaa. marka khatarta ugu weyn ee crypto ay leedahay waa maxay? waxaa weeye waa scam, in la scam gareeyo oo la dhaco oo mataqaana la jabsado weeye. waaye qodobkan afraad waxaanu ka eegi doonaa Soomaalida iyo cryptocurrency. marka bal iyaga faraqa iyo xiriirka ay wada yeelan karaan baan eegaynaa. horta inta badan Soomaalidu maanta way u baahan tahay fursad dhaqaale. dadku intooda badan waxa ay haystaan moobilo, laakiin ma haystaan bangiyo laysku halayn karo. oo waa taqaana bangiyadu inta badan iyaga jaangooya lacagaha iyo qiimaha iyo intay noqon iyaga jaangooya. dowlad iyo bangiyo wada waxaanu haysanaa aan yani wada temporary ku meel gaadha oo wax walba ay isbedelayaan daqiiqada gudahood. hataa dad 5 sano dib noqoto halka dollar intuu ahaa maanta Somali cash kuma hadee, yani waa aad garanaysaa intuu qiimihiisu tegin, sicir barar ballaaran baa ka jira, shaygiiba marka qaar hoos u dhacaya, kor buu u kacaya, yani waa wax aan meel loogu iman karin. so crypto waxay badbaadin kartaa arrimaha noocaas oo kale. sidoo kale cryptocurrency waxa ay siin kartaa Soomaalida fursad ay lacag ku kaydsan karaan oo ay ku dirsan karaan oo ay ka faa'iideysan karaan online-ka. waa fursad kale oo iyadna ay siin karaan. dadkaas markaa kaliya waxay u baahan yihiin wacyigelin, dadka la wacyigeliyo, lagana ilaaliyo ama laga hortago wixii khiyaamooyin ama khiyaama oo dadkaas u baahan. marka taasna waa Soomaalida. iyo qodobkan shanaad waxaanu ka eegaynaa Soomaaliya ma tahay meel ku habboon, wadanka Soomaaliya la yiraahdaa ama Soomaalida deegaanada ay degan yihiin ma tahay meel ku habboon. jawaabta kooban waa haa weeye. way dadku hadda way fahmayaan teknolojiyadda iyo internetka iyo fursadaha ganacsiga ka jira online-ka ama crypto-da ku jira, dadku way fahmayaan. marka maadaama dalkeenuna uusan lahayn dowlad xooggan ama lacag xooggan aynu lahayn, waxaan u arkaa cryptocurrency inay tahay il dhaqaale oo dadkeenu ay lacag ku kaydsan karaan. qodobka u dambeeya oo talooyin iyo muhiim ah oo aan doonayo in aad ku badbaadin karto lacagahaaga ama macluumaadkaas aad maaragtay kaga faa'iideysan karto waxaa weeye ha aaminin qofku yidhaahdo lacag baan ii soo dir anaa lacagtaa kuu maalgelinaya, weligaa aamin waa been weeye.